سلاميا سترك يا كو إلالية سادة القرحانيو سناني عدالة بان سادة القرحانيو سناني عدالة بان كما وذا سوغيناي سلقيقاقو وشرفي سهانكاقو وقولي سعودالكاقو ونبدي سفركاقو وقيري يا سماد برواقادي صدوو مدحوينهنو صدوو مدحوينهنو صدوو ومكان سنة بدن سلعيو دبسو مريي ومكان سنة بدن سلعيو دبسو مريي adigay ku sugayaano ku sacaabatumayane adigay ku sugayaano ku sacaabatumayane soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow makaan sanada badan silciyo dib soo marayay makaan sanada badan silciyo dib soo marayay adigay ku sugayaano ku sacaabatumayane adigay ku sugayaano soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله akhyaarta xildhibaanada labada gole sharaf bay runtii noo tahay inaan maanta soo dhaweyno mudane cabdikariin xuseen guuleed oo ahaa madaxweynihii galmudug wasiirkii federaalka siyaasi weyn oo rugcadaaya waxaan aad iyo aad ay sharaf noogu tahay inaanu soo dhaweyno oo dalka muddo dheer ka maqnaa mudane ku soo dhawow dalkaagii mar kale intanoo xildhibaana oo runtii xiise gaara ku qabay muddo dheer aan is arag anaga aad iyo aad bay runtii noogu tahay maanta oo jimca inaanu muxuu ahaayay halkan ku kulanno mudane cabdikariin wuxuu ku socdaa transit buu ku yahay halkan suu noo sheegay wuxuuna ku socdaa hobyo marka inaan fursaddan iyada ah bal muxuu ahaayay is aragno ayuunbay muxuu ahaayay ay tahay marka muxuu ahaayay lays salaamo wixii muxuu ahaayay lays oran karana markaasi uu talaana markaa uu yiraahdo anagu se muxuu ahaa runtii aad bay farxad weyn anoo ku hadlaya xildhibaanada labada gole ku hadlaya magacooga iyo martish iyo akhyaarta sharafta leh soo dhaweynta ka soo qayb gashay marka soo dhawow mudane cabdikariin maanta ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno mudane madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed oo ah shakhsiyad sidii loo sheegay qiimo weyn waddankan ugu fadhiya wasiir hore oo annaga aan wada shaqaynay madaxweyne hore oo galmudug siyaasi aan jecelnahay xormo weynna inta in loo qabo waxaa muujinaysa dadka ka hor yimi qiimahooda iyo culayskooda waxaan ku leenahay soo dhawow madaxweyne aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay inaanu maanta kuu nimi oo aan kugu soo dhaweynay madasha بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal mas'uuliyiinta kale ee kala duwan runtii sharaf aad u weyn ayay ii tahay maanta sidaan qiimaha badan iyo reynta ah ee magaalada Muqdisho
dalkayagii laigu soo dhoweeyey muddo dheer kadib markaan ka maqnaa arrimo aniga iyo duruufo aniga ii gaar ahaa daraaddeed ugu yaraan 2 sano iyo bar ku dhowaad ayaan ka maqnaa dalka marka sharaf ay ii tahay runtii inaan dalka dib ugu soo laabto inaan dadkaygii dib ugu soo laabto in dadkii asxaabta aan ahayno siyaasaddan saaxiibada ku ahayd aan dib ugu soo laabto aad iyo aad ay sharaf iigu tahay waana ku mahadsantihiin idinkana soo dhoweynta iyo marxabaynta aad soo dhoweyseen sidoo xildhibaankii igu horreeyay uu sheegay safar gaaban ayaan ku imid waxaan u gudbayaa dhinaca iyo magaalada Hobyo oo shir halkaas ka socda aan rabo inaan ka qayb galo insha Allah tacaala waa soo laaban doonaa akhyaartii asxaabtii kullina waa iswareysan doonaa waa wada sheekeysan doonaa marka aad iyo aad ugu mahadsantihiin soo dhoweynta soo dhoweyseen wixii eraya kala ah intaan ka sii faahfaahsan meeshaan u socdan ka jeedin doonaa insha Allah tacaala aad u mahadsantihiin السلام عليكم